السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنالك مركز السود وهذا أدي أدو محسنتين. هالجلادة إذا ماذا آيس تضبط كيس الدحادة يكودان مقالوين كمتانا هاي سان باولي مينيابوليس waxay saameyn ku yeelanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan haddaba waxaa jirtay dhalinyarada Soomaalida ah ee wada Uberka ama Lyftiga oo ka shaqeeya airportka St Paul iyo Minneapolis ka dhaxeeya ayaa waxaa jirtay in meesha ay ku sugaan marka rararku ay u soo dhacayaan oo parking-ka ay ciidamada ICE ay tageen isla markaana ay bilaabeen dad inay ka soo qabqabtaan waxaana sidoo kale dhalinyarada muslimiinta ah ee wada Uberka iyo Lyftigu sidoo kale ay ka cabanayaan in aysan lahayn meel ay ku weysa qaataan amaba ay ku tukadaan waliba xilliyada qabowga oo hadda lagu jiro haba ugu sii darnaatee marka shalay ayaa waxaa jirtay guddiga maamula airportka oo magaciisa MAC loo soo gaabiyo oo la yiraahdo Metropolitan Airport Commission waxay yeesheen kulankoodii ugu dambeeyay ee sanadlaha ahaa waxaana lagu casuumay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana kamid ahaa dadkii ka hadlay dhalinyaro Soomaali ah oo iyagu cabashadooda guddiga airportka labada magaalo ee mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis ka dhaxeeyaba maamulo waxaana sidoo kale jirtay in laga hadlay dhoofinta ama masaafurinta ay ICE ka wadaan airportkaasi oo diyaaradahooda inta yimaadaan dadka laga qaadayo isla markaana laga masaafurinayo haddaba dadkii shalay ka hadlay waxaa kamid ahaa in aadan macalin oo si kulul ula hadlay guddiga la airportkaasi maamula waxaana in waxyaabaha uu ka codsanayay kamid ahaa in loo sameeyo meel ay ku tukadaan amaba ay ku weysa qaataan iyo musqulo wanaagsan in loo sameeyo goobta parking-ka ah ee darawalada gawaarida Uberka iyo Lyftiga marka ay sugayaan rar u soo dhacayo ay ku sii sugayaan oo laga yaabo qaarkood maadaama dadku ay badan yihiin inay saacado halkaasi fadhiyaan aadan soo dhawow shalay guddiga ayaad la kulanteen airportka maamula maxaa kamid ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo aad kala hadasheen oo adigu shakhsiyan aad kala hadashay cilmi waa maasan tahay waxaan kala hadalnay guddiga saddex qodob qodobka waxaa kamid ah darawalada yar kamid ah waxaa la qabtay jimcihii subaxdii hore waxa lagu dhex qabtay airportka qolada ICE awal hore may soo geli jirin airportka gudaha u soo galeen waxaana soo wacay darawalada yar kamid ah soo wacay anagoo magaalada ku jirno meeshii markaa imaanina waxay ahaayeen saddex gaari oo ICE ah saddexda gaariga waxaa ku jiray saddex qof laba gaari markayna arkay inaan soo galnay aniga iyo yar nala shaqeeyo madaxa unionka xagga darawalada ka caawiyo markaa soo galnay laba kamid ah way baxeen kadib waxaa soo haray mid kamid ah baabuurtii ICE ee wateen waxaa dhacday meeshaas arrin aad u falxun ka dhacday wiilasha kamid ah oo darawalada kamid ah ayaa waxay sugayeen inuu ka baxo maadaama saa la socoto airportka parking-ka lagu sugo feerarka waxay rabeen ku baxo inay ka daba tagaan ee dhaxda ku qabtaan ay kala degaan gaariga sababtoo ah lambarkiisa midda tragrayna u malaya marka wuxuu kamid ahaa dadka dhalinyarada sharcilaanta waddan ku jooga mayoyakaasi kamid ahaa taasaan jecelnahaa waa gartay marka waxaa dhacday marka yarkii asaga ahaa maadaama kol uu soo dhici waayay anagina meesha aan imaanay oo qoladii ICE ku mudaaraadaysana meesha ay imaadeen maadaama uu wacay yarkii darawalada ka caawinayay xagga unionka uu wacay oo dhaay meeshii airportka markii soo galeen aan isku imaano markii arkay inaan baabuurta ka soo degnay waxay ku horgooyeen gaarigiisa waxay ku gooyeen gaariga ay wateen waa gartay kadib waxaa dhacday markii anaga banaanka soo baxnay farbiya aan soo qaadanay waxay noola soo baxay sunta ka ilmeysiisa dadka waa gartay kadib meesha adig buuqa ka bilaabmay adiga halka wiil bay noqotay inay farayana kala baxaan oo way wateen marka dadkii kale meesha ku jiray waa ka seedgaleen waa gartay waxaad marka meesha aad ka sheegtay inaad booliska wacdeen boolisku maxay idin yiraahdeen markii aad la xiriirteen marka booliska marka hore qorshaha wuxuu ahaa inaan soo geli karin parking-ka qof aan wadanin sticker baa jiro booliska ay bixiyaan airportka ay bixiyaan jiro waa gartay muraayadiis hore ay ku dhegan tahay oo lacag la idinka qaado oo lacag aad ku bixisaan aan ku bixinahaa lacag badan baa waan ku sheegi doonaa dib aan kaaga sheegi doonaa waa gartay dhacday marka booliskii markuu imaaday gadaal naga istaagay annagoo qaylinayno sunta ay noola soo baxeen ICE ninkii ay qaateen booliska markuu imaadana wuxuu noogu abaalguday in gaariga hal saac kadib uu qaadayo haddii aadan parking-ka laga qaadin waa towgareynayna waa jiidaynaa idinku yidhahdeen waa towgareynayna waa jiidaynaa marka arrintaasaa shalay markaa keentay in laga hadlo oo aad looga gelgisho midda labaad waxaa ka dhawaajisay salaada dadka iga dambeeya waxaa markhaati oga dhigaya anaga bartaasaan ku tukanaa
صلاة كنت كنا وماشاس قوجس وجرم ماينس 5 نوياه دراد أسوأ ماينس وياه وحنا كنت كنا نبنانك كور البوركا فوجدين ميديا سفيع وفيريا شعب كان سفيع وفيريا أقواسا وانتظر أحد هذا النوع صليد أنا كنت كنا برفع ولا قاعد وأقواسا سفيع وفيريا ميديا وأقواسا أو تسينا ميديا شعب كنا تسينا أمر قاتل لنا هذا صار في سوق جتميسي لا يحسن سوق جتميسي واقع عني قلادان ميك البوركا اسوا هيسني سالا سocodto cimilada way isbedelaan waa gartay kenya state xilliga kuleelahana aad bay u daran tahay cimilada xilliga warkeeda iska daa hadda ma waxaa jiray -5 iyadoo ay tahay waxaa lagu tukanayay Post Road terminal wadada aadaysa lagu tukanayay inaad media ka aragtay in kala ma garanayo waa gartay sawirada waad haysaa waad ii soo diri doontaa kolley waxaan ku soo diri doonaa waa haynaa marka waxaa dhacday marka arrintii marka waxaa naga caawiyey qoladan la dhaho SIU local 26 marka hadda baasha si u soo socotay winterkii baan ugu soo galay waa gartay marka wiilka lagu qaaday iyo tan hadda airportka ka taagan oo xagga salaada ah meesha fanini waxaa dhacday marka barafa qariyay meel yar waxaa jirto laba qof xataa ay ku tukan kareen oo ku soo diri doona waa arki doontaa dadku waxay fanayaan musqulo meesha ma jiraan waxaa jiro construction ka caagadaha in arag garanay noocaas ayaa loo sideed xaba ah waa gartay marka ayana waxaad garan kartaa biyihii ka soo baxay meesha salaadaadana ansax ma noqonayso markiina micnaha dee uu ka halaabay kuma tukanaysid marka arrintaas aan shalay aan ka hadalnayo aad waxaan uga doodnay arrintaas iyada waa gartay marka guddigii waad la hadasheen inkastoo laba qodob aad ii sheegtay tiri saddex qodob aan kala hadalnay qodob kale waad ii sheegi doontaa in guddigii waad hor fariisateen dhammaanba waa ay dhammaayeen cabashadiinina waad u gudbiseen sida aad sheegtayna markii ugu horreysay ma ahan maxaad jawaabah waad kala kulanteen marka horta shalay way nala hadleen aad bay noo dhageysteen cabashadani awal hore namay dhegeysan jirin oo sidii shalay ay noola hadleen sidii ay noola hadli jireen si ka bedelan shalay noola hadleen marka cabashadiina wax badan baan ka qabanaynaa ay dhahayn arrinta ayada ana waxaan negotiation nala socdaa annaga iyo unionka SIU local 26 waa gartay shaqeynayna ay sida wax badan u bedeli lahayn midda saddexaadna waxay tahay sida la socoto airportkan annaga waxaan bixinaa sanadkii waxaan bixinaa $5 million waa gartay waa canshuur aan bixinaa sababta feerka qofkii markuu qaaday markuu dhigaba lacag baa waxa laga qaadaa lacag marka commission baa laga qaadaa stickerkana lacagtiisu waa imisa stickerka idinku dhagan airportka halkii shirkadba waxaa laga qaadaa $25 waa 50 year qofka markii airportka qof uu ka qaado waa $375 qofka markuu dhigana $375 adi lacagta markii la isku geeyo pick up and drop off lacagta waxaa laga qaadaa $5 million ee noqotay a year waase iyaga ay sheegeen wax anaga aan hubno maaha laakiin inay ka badan tahay anaga aaminsanahay waa gartay marka waxaa jirta marka lacagtaas anaga airportka inay iyaga noo sameeyaan masaajidka iyo meelan ku weysa kaadana iyo cafeteria iyaga kuma leeyihiin waxaan ku leenahay Uber iyo Lyft breakdown ku leenahay marka iyagii baa ku dabban marka Uber iyo Lyft hadda wax annaga wax ka dhacsan lahayn marka waxay noqotay marka airportka annaga dhowr jeer horta sidoo airportka haddaanan lala dagaalamin Uber iyo Lyft lama dagaalamin karo marka waxay noqotay pressure-ka inaan airportka saarno adiga 3 months ago when ala fariisteen airportka waxay dhaheen xaq baa u leedihiin waa runtiin waxaan rabnaa inaan ila soo fariisano Uber iyo Lyft نمي سوى فريسني مركب إن شاء الله تعالى رجع في عنا لنا هاي أنا جي أوبر يلفتي ناس صار فريسنا أنت آيس محيد كير هذا المركب أو باكن لوت كماشي أتكسب تان رك إيمانية هذا السيد هذا آيس يجي ماشي جميع اللي كان ماشي وقدر على البيلدين جميع لكن وحيد النيغوسيشن أكسر مننا أريد أن يضع سيد الله صعد ضد بدنا وحاجة شرعية له وحتى عن شقيرين شقيرين كفقين دوت آيس وحيد ماني سهراسمنت عند ده يوحنا لو جوجي qofkii marka aan sala socdo dadkeena luqadda boqolkiiba ma fiicno wuxuu ka baqayaa marka problem iyo dhibaato inuu meesha ku galo asli alligeeda marka shalay dooda aad u kulleed keentay in laga hadlo meesha iyada ah waa gartay marka sida la socoto Soomaali waxay tiraahdaa ama buur ah ama buur ku tiirsano qorsheena annaga hadda waxaa faraha la soo galay oo ku jiro SIU local 26 unionka aan ka soo minguurinay inaan musqulaha aan xaq u leenahay cafeteria aan xaq u leenahay baakin fiican oo waasican aan helno
waxaan tagnay Chicago tagnay California tagnay Massachusetts tagnay inta way leeyihiin musqulo iyo wax walba ee leeyihiin aan kugu daray aadanu aniga hadda magaaladan aan joogo Indianapolis sidoo kale mudday socotay arintaasi markii dambe meel lagu weysa qaato iyo meel lagu tukadaba waa ay sameeyeen oo dhismo ah oo qabowga iyo kuleelkaba laga gali karo lagu dukan karana waa ay sameeyeen si fiican warunta waxa laga yaabaa hadda darawalada waxay organize gareynayaan ani hadda darawala ahay organize aanu ahay unionka waxaan taska saareynaa sidii aan ku geli lahayn union hadda koor waa la socotaa state kan wixii ka dhacay waxa la dagaa corporate kan weyn oo Uber and Lyft si fiican arintii mishaar kordhinta lacagta in la kordhiyo ahayd absolutely marka la dagaalana waxa dhacday annaga meesha goobjoog kamaana ahayn marka iyada ah xildhibaano ayaa noo doodayay waxaan ugula qatalay qalinkan ugula qatalay maadaama anaga waxay noqotay marka ragga saaxiibadee ah aan ka mid ahaa aad baan ugu hambalyeynaya heerkii ay soo gaarsiiyeen darawalada maanta shaqo waa la soo qabtay marka waxay noqotay in aan unionka annaga aan ka raadsano sidii ay noo difaaci lahayn sababta shaqaalaha way u gooyeen iyaga horta adi aragtay waddanka laan lama noolaan karo marka annagoo independent contract ah hatta waxa aan haysana ka badan aan heli karno horta annaga aan ka helayna darawaladaas horta waa in la fahansiiyaa si fiican waxaan u baahanay marka hadda California oo kale waa 820,000 drivers oo waxay ku biireen unionka sanadka Boston Massachusetts annaga waa kala soo shaqeynay waa 5,000 waynu boqolkiiba 10 hadda u dhiman adinka darawaladiina maxaa dantiin marka St. Paul iyo Minneapolis marka la isku daro ama minister aan u dhaxeynaa 15,000 to 20,000 inta u dhaxayso waa garto 15,000 ilaa 20,000 darawal intaas aan u dhaxeynaa hadda annaga ha marka unionka wax badan laga heli karaa adigoo independent contract ah hadda sida la socoto darawalka 24/7 hours wuxuu saaraya gaariga ma haysto sick bay wax la dhaho arinta dib haddaan ugu laabto ciidamada ICE markii ay parking lot ka imaadeen qofka ma intay u imaadaan ay leeyihiin sharcigaada na tus mase dad gaar ah ay bartilmaameedsanayeen oo ay soo aadeen kulligood cid walba way leeyihiin horta qofka bini'aadamka ah darawalada cabsida waxaa keenaysa waxay tahay nimankan wejiga u xira u soo socda wuu ku soo aadayaa qofku yahayna ma garanaysa marka ma dad gaar ah ay bartilmaameedsanayeen mise qof kastay sharcigiisa weydiinayeen maadaama madaxweynaha uu dhahay Soomaalida hadda Soomaalida kaliya target ah state kan hadda aan ku jirno ama anaga aan joogno waa Soomaali waa gartay waa ka dhibaatada taagan waa taas markay parking ka imaadeen ma Soomaali oo kaliya ay bartilmaameedsanayeen mise dadka parking ka joogo ama cadaan ama madow ama latino le qof kasto sharcigaadana tus ay dhahayeen mise dad gaar ah oo ay tracking ku sameynayeen ay bartilmaameedsanayeen Soomaalida kaliya bartilmaameedkooda iyaga yarkay wadeen inta su'aaleen Soomaaliya waa gartay marka waxaad ii sheegtay arinta salaada iyo arinta ICE qodobka saddexaad oo aad kala hadasheen mas'uuliyiinta airportka muxuu ahaa waxaan kaloo kala hadalnay sida la socotaan ku sheegay hadda in ay soo horfariisiyaan Uber iyo Lyft taanu ina hadduu Allah idmo waxay noo ballan qaadeen in ay meeshaas ay hagaajin doonaan cabashadeena ay wax ka qaban doonaan waxaa la xiriireysaan ee kala soconaysaan unionka SIU loo qabto waa tahay aadan macallin aad iyo aad u mahadsan tahay in wareysigaas aadna siisay oo ku aadanaa kulankii aad shalay la yeelateen mas'uuliyiinta airportka in St. Paul iyo Minneapolis oo cabashadiina aad u gudbiseen waan kaaga mahad celinaya wareysiga adiga wadan salaamu calaykum